السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو رئيس وحامهات سكال الله سبحانه وتعالى. waxaan doonayaa inaan ka hadlo noocyada mataanaha. waxaa jira laba nooc oo mataano oo loo yaqaano monozygotic twins iyo nooc loo yaqaano dizygotic twins. sida muuqaalada aad ka aragtaan dhalinyaradan sida aadka iskugu eg. intaan muuqaalkayga guda galin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka ii share garayso oo aad dad badan ii gaarsiiso, sidoo kale aad like saarato. waxaan kaloon kaa codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato Facebook page-kayga inaad follow saarato si aad ula socoto muuqaalada taxanaha oo aan maalin walba soo dhigi doono hadduu alla idmo. maxaan ku dhahay follow saaro ila soco. waxaa jira laba nooc oo mataano, nooc loo yaqaano monozygotic twins iyo nooc loo yaqaano dizygotic twins. monozygotic twins waxa waaye waa mataano asal ahaan ka yimid hal sperm iyo hal ovum oo bacrin samaysay. markii sperm ovumkay isku tagaan waxa ugu horeeya ee kasoo baxa waxaa loo yaqaana zygote. so zygotekii ayaa wuxuu sameynayaa cell division, uu qaybsamayaa, kadib waxaa kasoo baxayo laba cunug oo gooni ayaa kasoo baxayo. laakiin dizygotic twins waxa waaye waa mataano asal ahaan ka yimid laba sperm iyo laba ovum oo si gooni ah bacrin u kala samaysay. that's why loo leeyahay di. laakiin monozygotic twins waxa waaye waa mataano asal ahaan ka yimid hal sperm iyo hal ovum oo bacrin samaysay kadibna kala qaybsantay oo laba cunug ay kasoo kala baxeen. that's why marka mono means waxa waa single one oo hal sperm iyo hal ovum ayaa intay bacrin samayso waxaa kasoo baxay laba cunug oo kala gooni ah. badanaa marka monozygotic twinska mataanaha badanaa waxa waaye muuqaal ahaan way isku egyihiin 100%. waxyaabaha kale lagu garto waxaa kamid ah badanaa waxa waaye waa laba wiil ama waa laba gabar, oo sidoo waxay noqdaan laba wiil ay noqdaan ama laba gabar ay noqdaan, wayna isku egyihiin muuqaal ahaan. blood groupkooda xitaa dhiigga noocooda xitaa badanaa wuu isku egyahay, laakiin cod ahaan way kala duwanaan karaan. fingerprinterkooda wuu kala duwanaan karaa, iyo isha iriska idin sidoo kale oo qaybta iriska loo yaqaano sidoo kale way kala duwanaan kartaa. badanaa marka monozygotic twinska sida muuqaalad ka aragtaan aad isugu egyihiin. sida hadda gabadhan oo kale waxaa loo yaqaanaa xafsa, wiilashan waxaa waa loo yaqaanaa dobra, aad u taqaanaan social media caani ka yihiin. so sidii isugu egyihiin waad ujeedaan. sababtu waxay tahay asal ahaan waxay ka yimaadeen hal sperm iyo hal ovum oo inta ay qaybsantay bacrin markay samaysa kadib way qaybsameen, laba cunug ayaa kasoo baxaya. laakiin dizygotic twins waxa waaye waa mataano asal ahaan ka yimid laba sperm iyo laba ovum oo si gooniha bacrin u kala samaysay. markii si gooni bacrin u kala sameeyaan badanaaba waxay noqon karaan wiil iyo gabar. waxay noqon karaan dizygotic twinskan ka hadlaya waxay noqon karaan wiil iyo gabar, waxay noqon karaan laba wiil, waxay noqon karaan laba gabar. codkooda wuu isku ekaan karaa, wuu kala duwanaan karaa, blood groupkooda sidaasoo kale. laakiin monozygotic twins waxa waaye 100% way isku egyihiin iyaga 100%. badanaa laba wiilay noqdaan ama laba gabaray noqdaan, blood groupkooda badanaa waxa waaye 100% wuu isku egyahay. so marka qaababkaas ayay ku kala duwan yihiin. waxaan filaa muuqaalkan aad wax badan ka faa'iideen. share garay oo gaarsii asxaabtaada kale. aad u mahadsantahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.